kooxo burcad Koonfur Afrikaana ayaa boob kula kacay ganacsiyo oo ay qaarkood Soomaali leeyihiin oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Soweto ee magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika. Maxamed Cali Maxamed oo kamid ah Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa sheegay in boobkaasi uu kamid yahay falalka guracan ee lagula kacayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi, isla markaana inta ku daray in ilaa iyo hadda la laayahay halka jaan iyo cirib ay dhigeen saddex dhalinyaro oo Soomaali ah oo kamid ahaa kuwa dukaanka ku leh dalkaasi Koonfur Afrika saameeyayna boobkii xalay ka dhacay. waxaana ugu horeyn waraysi uu siiyay warbaahinta Star uga warbixiyay sida ay wax uga dhaceen dalkaasi. xaafadda iskuranka lidaado Soweto location Soweto ayaa waxa ka bilowday boob ilaa iyo haddana wax kiciyay maanan ogin lamana sheegin. dukaamada la boobay ilaa iyo waa 20 meeyo Bangladesh iyo Ethiopia u badan yihiin. ma jiraan dukaamo Soomaali ah oo la waxyeelay aba boobka uu saameeyay? boobka Soomaalida ay saameeyeen hadda ilaa iyo 6 dukaan tan maqlay. waan gartay 6 dukaan oo Soomaali ah boobka uu saameeyay. haye wixii kale laga gaari karana Soomaalidii magaalada joogtay ee gurmatay weyn oo dhaawaca ama dhimasho mid ma jirto, laakiin il waa jira jirdil way jiraan oo meesha loo gala la garaacay ka bacdina iska fakaday. haye waxa kale oo aan maqlay 3 wiil oo Soomaali oo la laayahay meel ay jaan cirib dhigeen. maxaa la idinku sheegay marka? waa maqlay wiilashii ilaa hadda way maxalla ilaa hadda way maqlay dukaamadii la weeraray ay ku jireen naftooda ila carrar marka. haye ana laga soo gaaray oo dhaha oo telefoon ku qaylinayo ka bacdi gurmadkii markuu gaaray dukaankiina cagta la mariyay ayina waa la waayay meel jaan cirib dhigan lama hayo. sidoo kale Maxamed Wali oo isna kamid ah ganacsatada Koonfur Afrika ayaa sheegay in ay sii baahayso dhibaatada ay ku qabaan dadka Koonfur Afrikaanka ah, waxa uuna fariin cabasho ah u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. marka kulli inta Soomaalida ka warqab iyo 3 wiil oo la laayahay ciribka jaan meel ay dhigan oo laga laayahay oo markii ugu dambeysay ay dhahaan waxaan nagala soo gaaro markii ugu dambeysay ka bacdina la waayay ciribka jaan meel dhigan raqdood iyo ruuxood. marka maajeedka u bixinaa waxay tahay Soomaaliya dawladda Soomaaliya aan u bixinaa waxay tahay inay mataqaanay dawlad baa la hadasha inay la hadlaan oo ay dhahaan dadka nagiba meesha degan oo ay la hadlaan oo ay ka warqabaan oo sida dawladaha kale ay u macaamilaan ay dadkan ula macaamilaan ma garad. beegsiga dadka Koonfur Afrikaanka ah oo ay ku hayaan ganacsatada ajaanibta ah gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ayaa sii noqonaysa sidii tusbax xarig goostay. welina ma muuqato tallaabooyin cad oo ay qaadeen mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya marka laga reebo weedha ay ka mid yihiin waxa socdo dadaalo wax looga qabanayo, balse taa ma noqon karto mid soo afjari karta dhibaatooyinka togan iyo midda bareerka ah ee lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika. dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ku nool Soomaali fara badan oo ganacsiyo kala duwan ku leh, waxaana inta badan ay la kulmaan dhibaatooyin isugu jira jirdil, dil caadi ah, hanjabaad iyo in si bareer ah loo boobo hantidooda, waxaana dhibaatooyinkaas ay sii kordheen sanadkan 2019. Cabduqaadir Maxamed, warbaahinta Star, Muqdisho.